guddiga fulinta ee UK xisbiga kulmiye iyo dhammaan laamaha iyo garabka haweenka iyo garabada dhalinyarada xisbiga kulmiye guud ahaan UK aad iyo aad baan idin salaamayaa gaar ahaan laanta Cardiff oo caawa dhammaanteen marti u nahay runtii hoolkan ama Cardiff waxay ugu dambeysay xilli loo dhaqdhaqaaqayay ama dhaqdhaqaaq xoog la socday oo ku saabsanaa ictiraaf raadinta Somaliland oo ay ahayd Cardiff magaranaysaa goboladii arrinta ka shaqaynayay baanu horta runtii hoolkan aan maalin nimid ay wafdiga si joogeen maalintaas bay ugu dambeysay dhaqdhaqaaqaasi imika waxaad moodaa inuu imika yara gaabis noqday sidii wasiirku uu sheegayna waxyaabahaynu maanta baahida u qabno ee ugu muhiimsan waxa weeye si uu dee qarankeenu u noqdo qaran jira oo la aqoonsan yahay oo bulshada caalamka ictiraaf ka hela arrintaas baynu ugu muhiimsan alxamdulillah waxaan haysanaa qaran dawlad baan nahay nabadgelyo haysata hay'adaheedii kala duwanaa haysata ilaahay idinkiisana dee taa waan ku guuleysan doonaa yawmin min al-ayaam ilaahay waa nagu guuleyn laakiin dadaal baa laynaga rabaa runtii markaynu joogno ingiriiska iyo dibadaha iyo magaranaysa dadka qurbaan nahay shaashadaha had iyo jeer baryaha kan dadka waxa soo food saaray cabsi fara badan oo runtii odayaashii hadlayba ay ka hadlayeen oo ah qaabka fariimaha ay isugu gudbinayaan siyaasiyiinta ku hirdamaya talada dalka oo runtii aanay magaranaysa dad badan jeclaysan arrinta kulli waa laga wada hadlay waxaan jeclaan doonaa in runtii arrimaha wax laga bedelo haddaan u soo noqdo aniga iyo tayda waxaan caawa halkan u imid oo masaafadaas intaa leegu soo socday laba qodob baa runtii ugu muhiimsanaayo ay mid tahay inaan laanta Cardiff kala qayb qato magaranaysa xafladii lagu khatimayay ee lagu soo dhaweynay waftigan oo Cardiff u yeelatay fursad inay caawa noqoto laantii xafladaha soo xidha mar labaadkana waxay tahay inaan maaragtay caawa halkan ka muujiyo hortiina oo magaranaysa waftigan caawina la jooga qiimaha badan leh hoggaanka xisbiga kulmiye ah laamihii magaranaysaa ee UK dhan u dhanyihiin iyo taageerayaashii xisbiga kulmiyaba laga bilaabo caawa oo filayna taariikhdu tahay 12 mise 12 oo maalin sabti ah inaan laga bilaabo saacadda aan idin la hadlayo aan ka mid ahay xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye dee muddo waan is ahayn laakiin berdhexdaasaan is yara weynay taasaan dee caawa halkaa hortiina ka muujinaya waxaa runtii waynu dee iswaraysan doonaa oo wada joognaa hadal waa kala bogan doonaa wax badan baa isugu keen dhiman waxaa isna ila socda nin aan saaxiiba nahay oo reer Bristol ah oo dhalinyaro ah cabdiraxmaan faysal cabdiraxmaan xuseen oo isaguna dhalinyartaan oo siyaasadda waxaan halkan iska yimaado caawa dee waxoogaa sheekaysanay faysal waa dhalinyartaan dee siyaasadda saaxiibka ku nahay isaguna caawa ayuu hortiina ka samaynayaa qiraal ah inuu isna ku soo biiray xisbiga kulmiye anigu waxaan deganahay xaafadda East London runtii East London dee waa meelaha Somaliland laga hagabay tahay hadday noqoto halganadii kala duwanaa ama kii Ingiriiska ha noqoto ama kii lagula jiray taliskii militariga ahaa ama kii loogu jiray dimuqraadiyadda iyo isbedelka waqtiyadii xisbiyada loo loomeeyay ha noqoto isbedel jiro kasta waxay ku suntan tahay inay ka qayb qaadato oo waliba kaalin muhiim ah oo muuqata ay ku leedahay East London waana meelaha imika kulmiye laga hago